nimid ee ka qiimaha badan ee ku dooranay gudoomiyaha iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka suxufiyiinta Soomaalida wadankan Jarmalka anigoo ah musharax tartamay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaalida ee wadankan Jarmalka saaxiibkay Sakriye ayaa guuleystay oo uu hambalyeynaya tartankuna waa qof guuleysta iyo qof hara marka aadan Sakriye kugu hambalyeynaya waan kula shaqeynayaa intayn ka badaba wad ma santahay saaxiibka Cabdirashiid Caynte iyo dhamaan wariyaasha warbaahinta kala duwan ee Soomaalida halkan joogta maanta aanu ururka Somali Deutsche Journalist aanu halkan kaga dhawaaqnay laguna doortay hogaankii ururkaas oo gudoomiye ugu horeeyo farxad bay tahay inaanu aniga Cabdirashiid halkan maanta ku tartanno rag walaalo ah oo warbaahinta ka wada shaqeeya oo muddo dheer wada shaqeynaya waan hayn in isaga la doortay iyo aniga la doortay soo kamid bay ahayd waxa labadooduba aan u adeegaynaa danihiina danaha ururka qawaaniinta ururka aanu dhiganay iyo wada jirkeena iyo sida aynu midnimo u sameyn lahayn farxad bay tahay inaan maanta aad igu sharafteen maanta inaan noqdo hogaanka koowaad ee ururku yeelan doono gudoomiyahooda insha Allah waxaan rajeynayaa inaynu sidan quruxda badan leh ee guulo badan ku wada gaarno inagoo gacmaha is wada haysana maanta waxaan tartamaynay gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta dalka Jarmalka anigoo Shamaarka Faarax guuleedna saaxiibkay Mahad Shaakir oo hambalyeynaya guuleysiga gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta dalka Jarmalka arrin doorasho qurux badan oo dimuqraadiyadda halka ka dhacday ee waa soo dhaweynaa walaalkii gudoomiye ku-xigeenka hawl adag baa u taala anaguna waa tartamino tartanka u banqayb ka hayn insha Allah tartanada kala rajeynayna guuleysano hambaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حبناها أورك صحفيين الصوماليات صومالي دو جورناليست إيه حنبليسي إيه عديسي هذه هذه مسلمة يا رنتي حل نقاد إدقاد رنتي مركي اللي يقدموا كحيانا تقليد بدنا يجيب حي حالك وعسلاذي وحان السيرتير كيمياء صارته أو توجشذا مركا والله حل إلا قبته وعدكتها وأذيقوا مال أنت مير كمرة أو كلاواي ومسؤولية قاضي marka ilaahay mas'uuliyadda noo fududeeyo hambaliyana waxa ka fiican in loo duceeyo qofka howl badan aan sugayso howsha inta badan waxay dhakada ka saaran tahay saaxiibkay Zakariya Jeelani aniga laakiin waxaan akaabe isaga la shaqeyn doonaa waxaan rajeynayaa insha Allah inaan xilka gudano muddada 2 sano aan haysanana inaan wax badan idin qabanno idinkana hal abuuriyaal tihiin wixii fursado aad aragtiin waad soo gudbi kartaan sidii macnaha barnaamijkan u noqdo barnaamij loo wada dhan yahay waxa milkiyadeeda waa wada leenahay qof gaar ah ma laha marka waxaan rajeynayaa in wax badan oo wanaagsan aan u qabanno shacabkeena Soomaaliyeed marka saxafi tahana waxa loo baahan yahay inaad iska ilaaliso waxyaabo badan inaad wax badanna soo kordhisid oo hal abuur tahay xirfaduna wax badan ay ka ilaalinaysaa wax badanna way kugu kordhinaysaa way aragnimo ay tahay inaan marka xil qabto marka insha Allah taala aad iyo aad ay dhamaasantiin waan idin mahadcelinayaa